nabadgelyo. aad baan idin salaamayaa dhammaantiin. sharafi korkiina ha ahaato. oo anigoo Sayid Cali Macalin Ibraahim waa barnaamijkiisa abuur. adduunyadu waa 3 maalin. shalay oo ahayd taariikh hore looga soo tagay oo aad adigu soo samaysay wax fiican ama wax xun. beri oo aadan garanayn meeshaad ahaan doonto. qadarka miyuu ku siin doonaa beri inaad noolaato ama waa lagu ofsan doonaa. cilmigeeda midaan adigu lahayn ama cilmu qaybka ah. iyo mid ahmiyadda ugu weyn oo aynu u noolnahay ah ama maanta aynu noolnahay. maanta waa hadiyad uu Rabbina siiyey. waa hadiyad aynu ku bedeli karno shalay xusuusihii xumaa aynu soo samaynay. aynu ku sii bedeli karno shalay xusuusihii wanaagsana aynu soo samaynay inagoo kordhin samaynayna. inagoo ku xisaabtamayna marka hadiyadda uu Rabbina siiyey. ka faa'iidaysiga maalinta inagoo dhan bay waajib inagu tahay. haddaanan maanta ka faa'iidaysanna shalay way ina soo dhaaftay oo taariikh xun ama wanaagsan baynu soo samaynay. shalay that was event taariikh bay ahayd, history bay gashay. laakiin maanta ayaa waxaynu u duulayna ama aynu ka socono shay walbo inaga nagu teedsanna maalintaa buu ka socon doonaa. sababtoo ah beri ma garan doontid meeshaad ahaan doonto. maanta ka faa'iidaysigooda adigoo kugu waajib yahay. marka xilliga aad iskuulka joogto waalidkaaga waxay ku dhihi doonaan maanta wax baradee. beri inaga wax aynu kaa fali doonno mase aynu kugu tarayn ma jirto. inaga waynu isa soo bixinay. adigaynu doonaynaa inaad mustaqbalkaaga dhisato. hooyadaada kugu soo sokaysa waxay ku dhihi doontaa naftaada uun dhis. aniga waxba kaagama baahnaan dooni. maalintan duqoobo qaadistaan waa kaaga baahnaan doonaa. laakiin hadda wax aan kaaga baahanahay ma jirto. mustaqbalkaaga uun qurxi. waalidkaaga kugu soo dhowbaa intaa ku oran doona. maantaa fursad haysataa. haddaadan adigu lahayn jismi weyn oo aad xamaali ku noqoto dee maskaxdan buu Rabbi kugu galladay. maskaxdan haddaad ka faa'iidaysanina waynu u baahnaa dad xamaali inoo noqdo sida dhabta ah. xamaali baad noqon doontaa. dadka maskaxda ka fikiraa waxay ka fikiraan iyagoo kaa jismi yar waxay ka fikiraan ayaad adiguna xamaali ahaan u noqon doontaa. naftaada marka ha ku qancinin inaad xamaali noqoto. naftaada ku qanci. shay walboo la baran karo ama shay walboo la barto qofka baranaya kaama maskax fiicna kaama dadaal badna. waxa la isdheeryaha waa inta qofku waqti iyo juhdi uu ku bixiyo iyo maalintiisa inta uu ka faa'iidaysto. maalintaada uu ka faa'iidaysto. shalay taariikh bay ahayd oo shalay ha fiirinin shalay waxun baan soo qabtay maantana wax wanaagsan ma qaban karo. aniga dhan lazy baan ahay. naftaada waxaas naftaan yar ku nuuxjisa hadday ka adkaato adigu maxaa taraysaa marka. naftaan yar ka adkaaw inaad hantisid isku day. marka baa dunidoo dhan bedeli kartaa. naftiisa ninaan ka adkayn siduu beri madax ama heerka yoolka uu teegsanay siduu ku gaari karaa. naftaan ku dhaqdhaqaajinaysa marka koobaad gacanta midig ku qabso horta. nafyey waan kaa adkahay dheh. anigaa ku maamula ima maamulaysid adiga. anigaa ku maamula. kadibna nafafka kale inaad wax ka dhaadhicso oo iyaga maamushaad gaari doontaa. heerkaas aad gaarto. hadalka aad hadashidba heer la koobiyeeyo oo la yiraahdo hebel baa hadlay. intaa haddaad doonaysid dee naftaada horta marka koobaad saamayn ku yeelo. maalintaadana ka faa'iidayso. nima maalintiisa ka faa'iidaysan maalin kaloo xun buu arki doonaa. nabadgelyo. aad baan idin salaamaya.